haweeney kasta way isku aragtaa qoyaan xubinka taranka balse cid kasta kama hadasho. Maanta waxaan doonayaa inaan ka hadlo qoyaanka xubinka taranka, midka normalka iyo midka normalka ahayn iyo sida loo daryeel iyo waxyaabaha in laga fogaado ay tahay. Horta si dabiiciya in qoyaan ka yimaado xubinta taranka dumarka waa wax caadi ah oo okay ah, taas isku meheysano. Waxaa ka hadlaynaa qoyaankas ka yimaanaya ma yahay mid nadiif ah, mid caafimaad qaba mise ma yahay mid aan caafimaad qabin. Soo marka maxaa ku garanaysaa qoyaankan inuu yahay mid caafimaad qaba ama inuu yahay mid aan caafimaad qabin. Midka caafimaadka qaba waa qoyaan cad ama oo nadiif ah oo cad oo wax yar jiidmaayo sida ukunta oo kale oo aan ur badan lahayn ama ur dhanba lahayn, sidoo kale ana wax cuncuna la soconin. Markuu qalalana oo ekaanayo wax yar jaalo adag ma aha, wax yar jaalo yar ayuu ekaanaya markii wixii awalta iska badashid ee uu qalalo. Sidoo kale wax cuncunaana ma laha, waxba gubitaana ma laha oo kaada ku gubto. Kaasi waa midka normalka. Midka normalka ah waxaa isku arkaysaa noociisu inuu yahay mid jaalo yar, mid jaalo ah ama cagaar ah. Sidoo kale jiiska oo kale uu yahay oo adag yahay, sidoo kale ur uu leeyahay ur daran ama urka kalluunka ama malaayga oo kale. Sidoo kale waxaa ku arkaysaa cuncun inuu la socdo, sidoo kale kaada inay qofka gubto soo raaci karo ama balbal. Markaas maxaa u baahan tahay si aad u daryeesho xubintaada taranka sida maalinlaha ah? Waxaad u baahan tahay horta inaad ka fogaato waxyaabaha carafta leh. Sidoo kale xubinta taranka dumarka si normal oo dabiici ah ay isku nadiifisaa. Dhacaanadaas isku saarayso waa dhacaana isku nadiifinayso, uma baahna waxyaabo waaweyn ama waxyaabo qaali ah, shaambooyin, waxyaabo waaweyn oo lagu dhaqo oo lagu nadiifiyo. Soo marka waxaa u baahan tahay inaad ka taxadarto waxa aad hoostaada gelinayso oo aad si fiican u nadiifiso oo ay yihiin kuwa jilcan oo breathable oo neef ka bixi karto. Sidoo kale inayna aad kuugu dhaganin, haddii aad kuugu dhagan yihiin waxay noqonaysaa inaad huurisid oo qoyaanka iyo wixii dhan iyo neefti ay isku huuraan. Sidoo kale markaa suuliga isticmaashid waxaa u baahan tahay inaad isticmaashid shukumaan yar oo nadiif ah oo aadan ku rugin meesha sensitive waaye oo ku qalajisid just. Sidoo kale uma baahnid wax saabuun ah inaad ku dhaqdid oo carfeyso. Waxaa ku dhaqi kartaa biyo yar oo diiran ama qandac yar ah, biyo kululna looma baahno oo pH-ka ayuu ka dilayaa balansiga. Saabuuntaas yarta oo carfeynin inaad qaybta kore ku dhaqdid, wali qaybta gudaha uma baahna, qaybta kore ee banaanka inaad ku dhaqdid saabuuntaas iyo biyaha diiran. sidoo kale markaa suuliga isticmaashid oo aad xaajo gudatid inaad qaybta hore dhaqdid kadib qaybta gadaal aadid. laakiin haddii aad qaybta gadaal intaa soo dhaqdid aad qaybta hore soo aadid waxay noqonaysaa inaad bacteria meeshan keentid oo infection aad sababtid. waxaa rajeynayaa qaybta hore iyo qaybta gadaal inaad kala fahantiin. saas waaye sida loo dhaqo loo nadiifiyo. waxyaabaha aad ka fogaanaysid waxaa u baahantahay inaad ka fogaatid wax kastoo carfaayo oo meeshaas aad ku dhaqi kartid. saabuun ha noqoto, shaamba ha noqoto, waxyaabaha carfa ee la dhaho dumarka lagu nadiifiya waxaas dhan waa inaad ka fogaataa. waxa mar hadday caraf leeyihiin looguma talagalin meeshaas. sidoo kale waa inaad ka taxadartaa waxa aad hoostaada ka xirnaysid. kaban haddii aad sagsaaman ku dhaqdid ama haddii aad ku dhaqdid biyaha ugu dambeeya dharka dhan aad ka dhaqdid ee wasaqda ah looma baahna. ama kaban haddii aad ku ridid sariirta hoosteeda waa inaad si gooniya uga taxadartaa. mida kalena waa inaad iska bedeshaa muddo 3 bil ilaa 6 bil kasto waa inaad iska bedeshaa waxa hoosta aad ka xiranaysid. waa inaad iska tuurtaa oo aad soo gadataa wax cusub. waa isla fahmayna waxa hoosta ka xiranaysid. saa jeclahay panties ayaa loo yaqaanaa Englishka. sidoo kale waxaa u baahan tahay markaa dhaqaysid inaad ka fogaatid waxyaabaha jirka lagu rugo sida galaafyada lagu qabaysto ama sidoo kale loofisgeedaha loo yaqaan ee lagu qabaysto oo jirka lagu rugo. uma baahnid meeshaas inaad ku dhaqdid bataatanba meeshaas inaad wax rugaaya ama wax adag aad ku dhaqdid looma baahna. biyahaaga diiran iyo saabuuntaas aad kor uga dhaqdid ayaa kugu filan oo aad la socotid qoyaankan noocuu yahay. haddii qoyaan nooc kale aad aragtid aad ogaatid waxa kugu sababay insha Allah waan kasoo hadli doonaa. qoyaanka aan normalka ahayn waxyaabo badan ayaa sababa, waxyaabaha sababo waan kasoo hadli doonaa insha Allah. waxaa rajeynayaa ciwaanka inaad wax ka fahanteen.